السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada cashirkeenii lixaad ee cashirada barashada suuqa Conforex advanced-ga. cashirkan waxaan ku baranaynaa market structure-ka ama qaab dhismeedka suuqa. qaab dhismeedka suuqa shay walba qaab dhismeed buu leeyahay. marka suuqa Conforex wuxuu leeyahay qaab dhismeed isaga u gaar. daba qaab dhismeedka suuqaas ayaynu ka hadlaynaa iyo noocyada kala baxo. suuqan hadaba wuxuu u kala baxaa saddexda nooc buu sameeyaa. nooca koowaad waa trend market, kan labaadna waa ranging market, kan saddexaadna waa natural market. labadana hadaba ugu muhiimsan oo inta ugu badan dhaca in kan koowaad baynu soo qaadanaynaa, trend marketka baynu soo qaadanaynaa. trend market waa suuq haysto jiha saxa lana aqoonsan karo kor iyo hoos midka ay tahay. waa suuq ama buy ah ama sell ah wax u dhexeeya ahayn oo jiha sax oo la aqoonsan karo haysta baa la yidhaha trend market. waa suuq ay caddahay inuu down trend yahay ama inuu up trend yahay, way kala caddahay. 30% buuna suuqa noocani suuqa ka yahay. haddaba haddii aynu tegno suuqii toos u tegno trend market suuqa la yidhaahdo waa sida kan oo kale. hadda suuqan kor inuu kasoo bilowday baad aragtaa ilaa iyo hadda ayuu hoos u soo socday, ilaa hadda hoos buu u soo socday. suuqa la yidhaahdo trend market waa suuqa noocaas oo kala dareera oo ah ee u shubma. suuqa noocan waxaanu ku aqoonsan karnaa waxaa jira wax la yidhahdo trend line, waana shayga cashirkeenu maanta u badan yahay. waa trend line-ka. trend line-ku waa linkaas aad suuqa saaranayso inuu up trend yahay iyo inuu down trend yahay ku aqoonsanayso. aad suuqa sidaas u saarnaysaba la yidhaha trend line. trend line waa ka trend market. haddaba waa suuqa sidaas ama hoos ugu socda ama buy sidan oo buy u socda. waynu ka dhex raadinaynaa mar u buy u socdana insha allah. waa kan sida halkaas oo kale buy u socda, kaasaa la yidhahdaa trend market. haddaba trend market ka qaabkee looga ganacsadaa ama qaabkee looga faa'iidaysta. ugu horreyn suuqani qaabkan u samaysmaa baan yidhi waxa weeyaan impulse ama jiha suuqu oo haysto. impulse waxaa la yidhaahdaa dhaqaaqa suuqa jihadiisa u socda, iyo correction oo ah nasasho yar oo suuqu sameeya sida halkan oo kale aan ku sawirayno. impulse iyo correction baa la yidhaha. mid waa soo laabasho yaroo nasasho ah, impulsiguna waa ka jihadii suuq u socday u sii jiida sida halkaas iminka inooga muuqato oo kale aan ku sameeyey oo kale. xabad kasta waxaan ku yidhi suuqa jihadiisa usii socoto waxaa la yidhaha impulse. kaas waa impulse, kaas waa impulse, kaasna waa impulse, kana waa correction, kana waa correction. haddaba trend marketku waa impulse iyo correction isku tegay isla markaana jiha haysta ayaa la yidhaahdaa trend market. trend line-kana waxaad saaraysaa laba fiiq, ugu yaraan laba fiiq oo ah correctioniska. impulsiga ma saaraysid meelo suuqa correctionka ayay trend line-ka saaranaysaa. halkaas oo kale marka waa correction uu ka soo kacay, impulse waa kaa dheer, correctionka kale soo laabtay ku dhifanaya isagan halkaabad saarnaysaa correction saddexaad. adoo ugu yaraan laba kamid a correctionka ama meelaha suuqu nasashada ka sameeyey ama meelaha uu ka laabtay ah baad saaranaysaa trend line-ka. kadib waxa aad uga ganacsanaysaa waxa weeyaan waxaad raaci kartaa marka uu trend line-ka kuugu dhaco ee uu ka noqdo ayaad sii raacaysaa impulsiga. daba trend market-ka aan kuu sheegaya waa kaas. markuu up trend yahay qaabkaas uu samaysmayahay. markuu down trend yahayna sidii oo kale waa impulse hoos u soo socda iyo correction dib u laabmaya. impulse hoos u soo socda iyo correction dib u laabmaya wuu noqonayaa sida halkan inooga muuqato oo kale. sidii aan inoo sheegay oo kale waxaad trend line-ka saaranaysaa dhammaan correctioniska suuqani sameeyo ayaa trend line-ka saaranaysaa ugu yaraanna laba xabo. oo sharciga trend line-ka u yaala ah in ugu yaraan trend line-ku taabto laba kamida correctioniska suuqu sameeyey ama laba kamida meelaha uu suuqu bullbagga ka sameeyey. impulsiga ma saaranaysid, bullbagga saaranaysaa. mar allaala markii la jebiyo trend line-ka
ilaa marka trend line-kaaga la jabiyo waxaad suganaysaa in suuqu pullback ku sameeyo ama trend line-ka sidaas oo kale ugu dhaco kadibna halkaasuu ka soo noqdo marka maxaa ku caddaanaysa in suuqu jihada bedeshay oo jihadii uu ku socday maahane jiha kala tegay hadda suuqaasi uptrend buu ahaa halkaa markuu socdo trend line-kii aad dhigatay jabiyey kadib uu ku noqdo pullback buu sameeyey markuu pullbackgaa sameeyey uu kasoo noqday maxaa halkaa kaaga soo baxday imbalsi buu samaystay suuqaas imbalsi cusub buu samaystay kadib correction yar buu celini imbalsi kaluu sii wadanayaa imbalsi kale ayuu sii wadanayaa saan oo kale adu maxaad saaranaysaa trend line-ka halkaagii baad saaranaysaa waxaa ku wari pullbackyada saaro soo ma halkaagiibaad trend line kale saaranaysaa way suuqaasi hoos buu baxay hadiid trend market suuqa la yidhaahdi waa suuqa sidaas oo kale jiho saxa u haysta aynu soo qaadano suuqa labaad oo ah ranging market ranging market waa suuq aanan haysan jiha saxa waa suuq aanan hayn uptrend iyo downtrend waa suuq u dhaxeeya downtrend iyo uptrend waana nashqada ugu badan ee suuqan ka dhacda suuqa noocana badanaa wuxuu dhacaa marka suuqu cilladoobo suuq trend market ahaa ama suuqii jihada haystay marka uu cilladoobo buu dhacaa waana 70% haddaynu tusaale soo qaadano ranging marketka haddaynu tusaale usoo qaadano waxay weeyaan ranging marketka wuxuu dhacaa waan kuudhi markuu suuq jiha sax haystay cilladooba soo ma aynu egeegano haddaba suuqa cilladooba halkan oo kale halkaas oo kale suuqani hoos buu iskaga soo socday kadib halkaa markuu socday wuxuu yeelan waayey kala dheerdheeraansho iyo yeelan waaye markaas kala dheeraansho waddamu yeelan waaye wuxuu noqonayaa ranging market haddii aynu ku yar noqono horta xoogaa casharkii suuqii hore ee ahaa trend marketka ahaa maxaa kaa iloobi trend market maxaa lagu aqoonsadaa trend marketku waxa uu leeyahay kala sarrayn higher high inuu kala sarsareeyo iyo lower low inuu kala hooseeyo higher high inuu imbalsigu pullbackii ka horreeyay ka sarreeyo inuu pullbackguna ka hooseeyo imbalsigii ayuu leeyahay nacam waa suuq sida catabadda sida jaranjarada midkaad u taqaano inuu u kala sarsareeyo ayaa lagu gartaa waa suuq kala sarsareeya sidaas oo kale sida jaranjarta u kala sarsareeya wuxuu leeyahay halkani waa low high halkaasuu teg waa higher soo maaha higher low waa kan uu low yar u ka hooseeyaa kaasna muxuu noqonaya higher high buu noqonaya kana lower high buu noqonaya oo kanuu kasii sarreynaya kana muxuu noqonaya kan lower low buu noqonaya markaa suuqu sidan u samaysmaa jaranjar midba midka ka sarreysa ka dambaysa buu kasii sarreeyaa xabadii ka dambaysa kasii sarreeya laakiin ranging marketku waa wuxuu samaysmaa marka suuqani cilladoobo tusaale wuxuu mar walba inoo sameynayay suuqu kala sarsarreyn saas oo kale haddaba markuu pullbackgan inoo sameeyey suuqii halkaas markuu socday wuu noqday waxaan ka sugaynay inuu imbalsi cusuba kii ka sarreeya inoo sameeyo laakiin markuu halkaa joogay muu dhaafin imbalsigii wuu soo noqday halkaasuu ka soo noqday oo ma sameyn higher high dambe muuna sameeyey halkaa markuu kasoo noqday suuqii maxaa kuwa cadaanaysa ranging market buu galay horta trend marketka u baaba suuqana ama jihadu bedelanaya ama ranging buu kusii jiraya sidaas inuu noqda laga yaabo halkaa ka yar noqdo haddana kadibna uu halkaa markuu socdo dib iskaga soo noqdo oo soo jabsado oo hoos usoo baxo ayaa laga yaabaa markaa trend line-kaagii adiga sidan kuugu yaalay trend line-kaagii markasta saas kuugu yaalay marka lasoo jeediyo trend line-kaagi suuqii u bedeshay jihadiisi soo maa waa kaas markaa trend marketka ama suuqa jihada haysta waxaa lagu yaqaanaa inuu kala sarsareeyo suuqaan jihada haysan ee ranging marketkaana waa suuq aanan kala sarreyn waa suuqan kala lahayn imbalsi iyo correction aanan kala lahayn weeyaan soo dhaa waa suuq aanan lahayn imbalsi iyo correction waa suuq iswada leeg oonan lahayn imbalsi iyo correction wuxuuna badanaa dhacaa markuu cilladoobo suuq trend market ah
marka maxaa looga faa'iidaystaa waa support iyo resistance baa loo dhigtaa badanaa support iyo resistancegaas waxaan kusoo qaadanaynaa cashir gaar ah iyagana hadduu ilaahay idmo oo maxaad odhanaysaa suuqaas markuu saasoo kale ranjin u sameeyo uu saa uga baxo waxaad sugaysaa intuu saan kuugu noqonayo kadib halkaas uu ku sameynayo haddana soo noqosho kale oo ah inuu suuqu jihadii hoos keenayo halkaasaad kasoo galaysa aad inter ka dhiganaysa kaasaa la yidhaha ranjin market haddaynu ka dhex raadino suuqan ranjin market-ka ah haddaynu ka dhex raadino waynu ka dhex helaynaa way ranjin market markasuu dhaca waa kaasoo kale halkaasuu ka dhacay waad arkaysaa noqnoqoshuu sameeyey suuqan jiha saxa haysan buu oo up trend iyo down trend midna ahayn waa kaas ranjin marketku waa suuqaas korna u socon hoosna u socon ee saasoo kale isku wada leh kaas baa la yidhaahdaa ranjin market cashirkeenan intaasaan kusoo koobaynaa insha allah waan soo kokoobaynaa sharaxaada waxaanan mar si fiican iskugu wada dhexgelinaynaa suuqyadan iyo cashiradan hal strategy oo dhammaadka cashiradan ah saa daraaddeed fideodaas ay nagu soo kokoobmaadnaan ayaan usoo gaagaabinaa insha allah